السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دبا صاحبي دمانتينا waxaan rajeynaa inaad caafimaad qabtaan. muuqaalkeeni wuxuu ku saabsan yahay maanta qaabkii aad soo degsan laheeday barnaamijka cusub ama platformka cusub ee hadda Bluefin ka soo guurtay oo ah CTrader. sidaan wada ognahay dhammaan isbuucyadan soo dhaafay waxaan group soo wada dhigaynay ama niila share gareynay niila wadaagaynay in MT4 laga guuri doono oo CTrader loo guuri doono kadibna markaas lagu soo dari doono indexka. so maanta waa maalin Isniin ah, waxay ku beegan tahay maalintii ay shirkadda Bluefin ay ka guurtay barnaamijkeedii platform barnaamijkeedii MT4 oo guurtay barnaamijka cusub ee CTrader. so muuqaalkan waxaan kugu sharxi doonaa sida aad u soo degsan laheeday platformka cusub ee Bluefin ee CTrader, qaabka loo isticmaalo, qaabka tradeada aad ugu gali kartid iyo dhammaan wax allaala waxay warbixin aad ugu baahan tahay. sida wada ognahay haddii warbixin yarkaas iyo CTrader waa platform ka mid ah platformyada ugu casrisan uguna dambeeyay ahna farshaxanadii ugu dambeeyay ee soo baxa ee ah barnaamijyada lagu ganacsado sida MT4 ka MT5 ka ama web trader-ka. CTrader wuxuu barnaamijyada kale kaga duwan yahay, waa mid ka mid ah barnaamijyadii ugu dambeeyay horta ay la soo saaray oo casri ah oo farshaxanadii ugu dambeeyay kulliya isku wada keenay. sidoo kale waxyaabaha kale ugu duwan yahay waxaa kamid ah in sida trading view adiga oo jooga ama trading view dhexdiisa markii aad wax ka soo analyze gareynayso sida la mid ah aad CTrader sidaas camal dhexdiisa ka sameyn karto asigoo CTrader-ka ugu fiican haba badan ama features badan uusan lahayn trading view-ga. dhammaan muuqaalka waxaa kugu tusi doonaa qaabka aad tradeada u qaadan laheeday, qaabka aad screen-kaaga u quruxsan laheeday iyo qaabkii aad Bluefin ka CTrader akoonkaaga iskugu xiran laheeday. so hadda waxaan wada tagi doonaa mobile. hadda wada joogtiin waxaa ku jira mobilkeygii. ugu horeyn waxaa tagtaa App Store-ka ama Play Store-ka hadba mobilka adiga aad wadato. haddii iPhone aad wadato App Store-ka tag, haddii aad Samsung iyo aad wadato mobilada kale Android-kana waxaa tagtaa Play Store-ka, qaybta searching-ka tag, meeshaas ayaa waxaad ku qoraysaa Bluefin CTrader. sida u jeedin hadda waxaa ii soo baxay Bluefin CTrader, kadib click ayaan sii doonaa oo Bluefin CTrader ayaa ku dhufan doonaa uu saraadinaya. waxaa rabaa inaan la soo dego marka sida u jeedin waa kana hadda waxaa meesha ku qoran Bluefin CTrader. appka aan rabna inaan la soo degno waa appkan oo hadda sida u wada jeedin waa app waa diyaar. aniga xageygay waa mar hore ayaan soo degsaday. hadda waxaan sameyn doonaa inaan open gareeyo. adiga haddii aadan soo degsanin isku day inaad soo degsato kadib open taabo. sida hadda ugu jeedin maadaama Bluefin markii hore MT4-kii ay xogta MT4-kii aad tradeada ku gali laheeday ee website-ka diyaar kuugu aheeday hadda wax yar un baa iska bedelay. sida hadda ugu jeedin meeshan wuxuu ku weydiinayaa xogtaadii aad login ku sameyn laheeday. xogta login-ka aad ku sameyn laheeday already email-ka ayaa lagu soo diray ama Gmail-kaaga ayaa lagu soo diray maalintii shalayta ahayd, maadaama ay MT4 ka soo guureen dadka oo idil waxaa loo wada dirayay CTrader-ka oo idil. so waxaad sameysaa email-kaaga booqo. email-kaaga markaad booqato ka soo fiiri email-kii ay ayaga ku soo direen. tusaalahaan haddii aan ku tuso ama screenshot yar oo aan ka soo qaado haddii aan ku tusiyo waxaa u jeedaan hadda meeshani in email-kan uu yahay email-kii aniga ay ii soo direen shirkadda Bluefin. waxaa meeshan hadda ugu jeednaa inay ku qoran tahay akoon, lacagta akoonka inuu live uu yahay, currency-giisi, email-kiisi iyo CTrader ID-giisi. marka waxaa sameynaysa kaliya waxay tahay email-ka ay ku siiyeen ama email-ka aad isku diiwaan gelisay ay ku soo direen kaliya ayaad copy soo leedahay, waad soo qaadaysaa kadib waxaad la imaanaysaa meeshan oo ah meeshii email-kii loogu talagalay. kadib email-kaaga baasta ku dheh qaybtan enter password-ka ay ku qoran tahay. password ma haystid laakiin waxaad sameynaysaa forget password ayaa leedahay. si automatic email-kaagii ayuu wuxuu kugu dirayaa receipt password oo email-kaagii ayaa tagaysaa kadib password cusub aad soo sameysanaysaa. password cusub markaad soo samaysatid waa soo confirm gareynaya. markaad password ka soo bedelatid kadib appka ayaad ku soo laabanaysaa. appka markaad ku soo laabato kadib password-kaagii cusub ayaad inta gelinaysaa. so hadda password-kaaga inta gelina waa isku soo laabanayna. password-kaygii ayaan hadda geliyay. kadib waxaan dooranayaa login oo waxaan gudaha u galayaa Bluefin CTrader-kii. sida wada u jeedin hadda isla markiiba waxaa ii soo kacay akoonkaygii oo Bluefin CTrader ah
oo waxaad ujeedin in akoonka uu shaqeynayo. qaybtan kore haddii aad fiirisid waxaad ujeedaa in balansiga akoonka ku jiro ay tahay $25,075. qaybta equity ayaad ujeedaa. marka qayb ayaan u sharxi doonaa oo waxaa horta ugu horeen ka bilaabi doonaa shaashada afka hore ama fiiskeeda hore. sida ujeedin qaybtan waxaa ku qoran watch listigan waxaa loogu talagalay lacagaha markaas aad ku trade gareynaysid inaad soo gashato si aad falanqeen ama trade aad ugu gasho. si lacag aad ugu soo darsato kaliya waxaad u baahan tahay qaybta hoose inaad imaado aad symbol aad taabato. kadib meeshaan waxaad u arkaysaabo metaliskii forex spot. kadib lacagta rabtaa dooranaysa. tusaalahaan waxaa leeyahay aniga lacagaha forex inaan doortaa rabaa. lacagaha kuu dooran mar walba xidig ayaa saaran. lacagta ay rabtid inaan dooratane kadib waa taabanaysa oo xidig ayaa saaranaysa. tusaalahaan hadda waxaa leeyahay waxaa u baahanahay USDGB inaan ku darsado watch listigeygii. USDGB ayaa dooranaya. kadib waa sii soconaya. waxaa leeyahay hadda waxaa rabaa inaan ku darsado tusaalahaan kasoo qaad GBP CAD. kadib star ayaa taabanaya. kadib dib ayaa ugu laabanaya. isla markii meeshan waxaa ujeedaa in USD GBP iyo GBP CAD ay igu soo darsameen. midaasi waa qaybta watch listiga ama qaybta lacagaha loogu soo darsan lahay. qaybta labaad oo anakeen oo ah meeshan positionka. qaybtan positionka waxaa loogu talagalay in tradeada kuu furan aad ka aragto oo tradeada caadiga kuu furan aad meeshan kala socoto. hadda maadaama wax trade aanan ni furninin meeshan waxaa ugu jeednaa inaysan wax trade ah ama wax ay information aysan inoo oolin. qaybtan labaad nakeen, qaybta saddexaad nakeen oo ka qoran tahay orderska. sida caadiga orderska waxaa loogu talagalay markii aad order dalbato ama buy limit ama sell limit ama buy stop ama sell stop markaad ku gasho ay orderada inta kaaga soo muuqanaya. sidoo kale appkan wuxuu ku soo fiican si traderka wuxuu leeyahay baras alert waxa waaye in lacag qiimahaas markay gaarto ama tusaalahaan euro USD ayaa rabta inaad gasho. waxaa leedahay euro USD markay qiimo heber 1.25 ay gaarto alarm ii soo dir ii sheeg inay qiimahaas gaartay si aan ula socdo aan markaas indhaha u hayo. si markaas aad u sameyso waxaa u baahan tahay meesha koray aad u jeedin falaarta kacayso inaad click siiso. kadib lacagta rabta meesha ka fiiriso. hadda tusaalahaan euro USD ayaan u jeedaa. euro USD meesha ku qoran waxaa u jeedaa in qiimahan hadda euro USD qiimaha hadda ay marayso 75,553 meesha ku qoran tahay. tusaale ahaan waxaa leeyahay 75,600 markay gaarto alarm ii yeeri oo ila socodsii. kadib waxaa taabanaya meesha ay ku qoran tahay create baras alert oo waxaan abuurayaa alert. sidaad u jeedin meeshan waxaa ii soo dhigmay in euro USD alert uu iiga yeelmay oo markuu qiimahaas oo gaaro si automatic email ay soo dhici doono appka dhexdiisana ka arki doono. soo qaybtaas waa baras alertigi waa ka tagi doonaa qaybtan historyga waxaa jeclahay inaad si fiican u ogtihiin oo mar allaala markaa tradeada wada gasho tradeada way record gareysmaan. qaybtani ayadana sidoo kale waxaa loogu talagalay tradeadii recordsamay oo recordka kugu jira inaad kala socoto. waa kasii socon doonaa oo waxaa tagi doonaa qaybta transactionka. qaybtan transactionka ayadana waxay tahay waxaa loogu talagalay markii aad deposit markii aad withdrawal sameyso lacag la bixida iyo lacag dhigashada markaad sameyso in dhaqdhaqaaqaaga kala socoto. hadda sida meeshan u jeedid waxaa inoo yaalo in deposit 22 bishii lagu sameeyay $25,075 ah lacagta akoonkayga ku jirtay. so I hope waxaa rajaynayaa qaybtan inaan isla wada fahnay oo ah qaybtii hore ee markii aad soo gasho akoonka. waxaa inoo dheer inaan isla wada fiirino qaybtan ay ku qoran tahay 3 xabo ama 3 calaamadood ee saaran ayaa ku dhufan doontaa. ayadana meeshan waxay kugu jirto sida depositka loo sameyn lahay, sida withdrawalka loo sameyn lahay. withdrawalka marka aad rabto inaad sameyso easy waxaa sameyn doontaa withdrawal ayaad kala sii doontaa. si toos ah wuxuu kugu haysan doonaa Bluefix dashboardkii ayaad withdrawalka soo sameyn doontaa oo waa sidii hore ay aad u sameyn jirtay withdrawal waxba lagama dhex bedelin oo si traderka dhexdiisii ayaad kala siinaysaa. kadib si toos wuxuu kugu geedi doonaa website-ka Bluefix meeshaas ayaad kasoo dhex sameyn doontaa. soo qaybta kale xigta waxaa noo xigo new order kan sida caadiga ah waa markii aad order cusub furinayso ama trade cusub furinayso. soo muuqaalka dib qaybta dambe ayaa ka sheegi doonaa oo waxaa ku tusi doonaa qaabka tradeada aad u gali lahayd qaabka stop loss ku idin loo geli lahaa. marka waa kasii tagayaa oo qaybaha kale ayaan sii dhameystiri doonaa. create baras alert waa midii hore aan kuu soo sheegay. find add ensemble waa qaabkii hore aan kuu soo sheegay oo loogu soo darsan lahaa lacagaha kadib adigoo star saarayo. soo qaybta kale xigto waa manage accountida. qaabka manageka iyo akoonkaaga aad u maamuli laheeday kaliya haddii aad rabto inaad demo dhex furato, haddii aad akoon kale inaad rabto inaad furato trading akoonkaagii inaad wax ka bedesho magaca aad ku qorato waa xogtaas oo idil wax asaas u weyn ah ma laha. qaybtani waa qaybta settingka oo aad settingkii ka gali laheeday. soo hadda waxaa soo laabanayna qaabkii trade aad u furi laheeday. qaabka trade u furi laheeday laba qaab trade oo furi kartaa oo trade oo gali kartaa. tusaalahan hadda waxaa leeyahay aniga almost waxaa rabaa inaan trade ka galo GBP GBY
analyskaygi hore ayaan soo samaystay oo waxaan idin doonaa anoo si live trade u gali doona. Marka laba mid way ku furan tahay. Midda koowaad ee ku furan waxay tahay in qaybtaani ama meeshaani cadaanka aad ugu jeedin chartiska gaduudka ama casaanka ayaad click siinaysaa. Click markaad siiso si automatic meeshan waxa ugu jeedaa chartiski ayaa ku soo baxay. Chartiska sidoo kale waxa dheer sentimentigan waxa waaye wuxuu ku sheegayaa suuqa dadka dhinacay ugu jiraan. Su'aalaha hadda waxa u jeednaa qaybta yar ee gaduudan ama casaanka waxay sheegaysaa in dadka GB ay ugu jiraan sell 62%. qaybtan kale ee buluuga dadka waxay ku sheegayaan in 38% dadka ay ugu jiraan dhanka buyga. Marka si order aad u sameyso waxa u baahan tahay sida hore kugu soo sheegay in lacag walba aad dul tagto kadibna meesha yar ee geeska dhanka midig ka jirto ee chartiska ay hadda ku qoran tahay 7.2 iyo 0.04 ayaad click siinaysaa oo hadda click ayaad qaybtaas siinaysaa. kadib si automatic waxa ku soo bixi doona meeshan ay ku qoran tahay loadkii ayaa inta ka arkaysaa. inta waxaad ka arkaysaa sidoo kale lacagtii viewgeedii ayaa meeshan ka arkaysaa oo GBY ah. sidoo kale waxa hoose ama qaybta hoose aad ka arkaysaa ayadana sentimentigii oo idil oo meeshan sida u jeedin sentimentigii ayaan yaalo. marka dadka qaar waxa rabaa in meeshan load ay ku qoran tahay oo volume marar qaar uu soo baxayo sida groupka dhowr mar ay dhalinyaro badan igu soo weydiyeen. si meeshan load aad ugu bedesho waxa u baahan tahay ugu horeen inaad dib u laabato qaybta settingka aad tagto. setting markaad tagto kadib qaybta assetka aad ku dhufato. asset markaad ku dhufato dhammaan click meeshan si haday unit ku tahay meeshaas load u bedel. hadda tusaalahan hadii aan dhahno anaga load noo tahay unit hadii aan ka dhigno qaybtaasi hadda ay idin tusinayo waxay noqon doontaa meel ay ku qoran tahay volume. sida u jeedin 1000 GB ayaa ku qoran 5000 GB qaab volume ahaan ayaad u trade gareyn kartaa ayaad u trade gareynaysaa. marka qaabkaas si aad u bedesho waxaad u baahan tahay inaad setting ka tagto asset aad ku dhufato kadibna meesha forex spot aad ku dhufato kadib unitka aad ka bedesho oo load aad ka dhigto. dhammaan isku day load inaad ka wada dhigtid si loadka meesha uu kugu soo baxo. hadii unit uu ku yahay meeshaasi volume ahaan ama unit ahaan ayaad ugu trade gareyn kartaa. soo ayadana waxa fiiraa taasi inaad fahanteen. marka waxa sameyn doonaa GBY ayaan dul tagay. GBY chartigeeda waa kana si fiican oo analyze gareyn kartaa waa fiiri kartaa. qaybtan hoose waa meeshii saacadaha laga bedelayay hadaa rabtid 15 minute ayaa ka dhigi kartaa. qaybtan kale waa qaybta chartiski aad ka bedeli kartid indicatorski. soo qaybtan kale waa qaybihii aad ugu soo darsan laheeday hadii aad u baahan tahay indicatorada. hadda waxa la calculator u soo dar oo ujeeda. qaybtan kale ayadana waxa waa si automatic inaad trade u gali karto oo isla markii meeshan wuxuu ku soo saaraa sell and buy kaliya one click ayaa trade ku gali kartaa. qaybtan kale ayadana waxa u jeednaa in trend line-kii iyo ay yaalaan trend line-kii iyo xogaha kale aad ugu baahan tahay sida chartiska aad wax ugu sawiri laheeday sida trend line-kii hadda u jeedin waa kana trend line-kii sida u qorxsan laheeday iyo dhammaan chartiska ay kale ayaad halkan ayadana ka heli doontaa oo meeshan kuugu diyaar ah. soo dhanka kale hadaa ka sii socono qaybtan kale hadaa imaano waa sida caadi view-ga adigoo fiirinayo oo marba meel ku qabanayo. hadii aan ka soo socono view-ga qaybta kale hadii aan tagno meeshani ayadana waxa ku qormayo positionada trade-da markay ku furmayaan. soo inta waxaad sameynaysaa dhammaan price alert-ga daarabtid ka qaado waxaad sameysaa order-iska active ka dhig positionska active ka dhig bid price-ka active ka dhig ask price-kan active ka dhigo oo halaas active ka dhigo. soo qaybta labaad aad trade u gali karto ayadana ama qaabka labaad oo aad sida hadda amal u sameyn kartaa waxay tahay inaad qaybta geeska click siiso new order aad taabato si lamid ayadana waxa ku soo bixi doona qaabka trade-da u gali laheeday. marka waxaan sameeynaa isku dayeynaa inaan qaadano mid kamid trade inaan ka qaadano oo waxaan isku dayi doonaa GBY inaan trade ka qaato. marka laba mid waa ay furan tahay oo ah ko inaan loadkeyga iska soo saxo oo loadkii aan ku gali lahay meeshaasi aan ku diyaarsado. tusaale ahaan waxaan leeyahay loadkeygii waxaan rabaa inaan ku galo almost ka soo qaad 10 lot 0.50 lot ayaa rabaa inaan ku galo leeyahay 0.50 lotkeygii ayaan diyaarsaday. 0.50 lotka markii aan diyaarsaday kadib waxaan leeyahay ama dooranayaa qaybtan sare ee warqada ku qoran tahay. qaybta sare warqada ku qoran tahay ayaan tagayaa. soo bahalkan wuxuu ku fiican yahay MC Trader ku fiican yahay waxay tahay in MT4 waxyaabo badan uu kaga casrisan yahay. waxyaabo kaga casrisan yahay koow waxa kamid ah in
take profitkaaga tusaalahan hadda 50 bib uu ku dhaqaaqo si automatic 20 bib stop loss kaaga uu isku soo guurinayo oo 20 bib isku keenayo. marka waxyaabahaas waa waxyaabaha ugu fiican yahay. dhanka kale waxyaabaha kale ugu fiican yahay MT4 waxa kamid ah in trade hadii gasho aad tusaalahan aad dhahdo 30 bib trade ka soo ii dhaqaaqo 2 trade iiga fur, 1 trade iiga fur, trade kale oo opposite ku ah iiga fur, trade kale isku jiha ah iiga fur. dhammaan waxyaabahaas oo idil ayuu MT4 ugu casrisan yahay ama ugu fiican yahay. soo hadda marka waxa isku dayi doonaa inaan trade ka qaato GBGBY. waxaan isku dayaa in jihada aan ogalayo aan doorto oo ah jihada sell. loadkeygii waan soo saxay oo sida hadda meeshan u jeedid waxaa diyaar ii ah load 0.5 inaan ku galo u dhigmato content centi. so inta marka waxaa sameynaya market range-gaaga waxaa leeyahay market range-ga inta ayaa dooranaysaa oo waxaa leeyahay stop loss-kii ayaa horta furaa. qaybta stop loss-ka ayaan dooranaa. stop loss-ka si automatic meeshan kaliya bibkaagii ayaad u sheegaysaa inta bib aad rabto inaad stop loss ku gasho. tusaalahan hadda waxaa leeyahay waxaan rabaa inaan ku galo stop loss-keygii uu noqdo 30 bib. 30 bib ayaa rabaa GBGBY inaan stop loss ahaan ugu qaato. sidoo kale inta waxaa ugu jira trading stop loss ah. trading stop loss kan hadii aad doorato waxay tahay in lacala hadii 30 kan bib uu ku soo dhawaado ama stop loss uu kaaga dhici karo option kale oo waxaa sameyn kartaa stop loss kaagii aad ku soo guuri karto oo aad konton bib wax kale uu soo dhigi doonto. marka aniga ma rabi trading stop loss ka inaan isticmaalo kaliya halkii stop loss kaliya aan ku qanacsanahay oo 30 bib inaan la gareey kaliya ayaa raba oo waa iska xiriyaa meeshan. soo hadda qaybtan soo sameeyay waa qaybta stop loss ka ah oo trade-keygii stop loss ayaan u sameeyay. hadda waxaa tagi doonaa qaybta take profit ka si automatic qaybta take profit ka ma baahno tirooyinka inaad geliso kaliya meeshas ayaan ka sii wadaa oo waxaan leeyahay take profit-keygii waxaan ka rabaa inaan ka dhigto 100 bib. 100 bib ayaan ka dhigayaa maadaama stop loss-keygii 30 bib oo yahay si risk reward ratio fiican aan ugu helo hadii lacagtani aan ku guuleysanayo. marka hadda waxa ujeedaa inaan ka dhigay ayadana 100 bib. sidoo kale waxaa xusid mudan ama hilmaamay qaybtan kore waxa ujeedin in market-ka uu leeyahay market limit-ka ama meeshii exclusion oo nooga hay MT4 ka meesha market ayuu ka yahay oo si toos ayaa market u galaysaa. qaybtan waa limit-kii, qaybtan waa stop loss-kii ama stop limit-kii, qaybtan kalena waa stop limit-kii ama hadii aad rabto stop limit ama limit-kii ama sell stop inaad ku trade gareyso dhamaan qaybahan kale ayaa dooran doontaa. soo aniga ma rabo kaliya waxaan rabaa inaan ku trade gareeyo oo market-ka oo si toos ah u galo. marka xogteedii waan soo dhameystiray oo hadda meeshan waxa u jeedaa si automatic ah in lacagta aan akoonkaan hadii aan ku faa'iidayo ee tahay ama faa'iido hadii 100 bib ay toosto aan ku faa'iidayo $393. soo halka aan hadii aan qasaarayana aan ku qasaarayo $118 oo u dhigmato 0.47. macnaheedu waxay tahay wax ka yar 1% ama 1% ama 0.5% ayaan qasaarinayaa hadii aan qasaarayo halka 1.57 oo faa'iido aan aadayo. qaybtan hadda u baahan tahay comment ayaad ku qori kartaa. soo hadda xogteedii waan soo dhameystiray oo stop loss-keygii waan u sameeyay, take profit-keygii waan u sameeyay. kaliya waxa noo dhimanaa waxay tahay jihadii waan soo doortay oo sell aan galayaa, load-keygii waan doortay. kaliya waxa noo dhiman inaan trade-kii aan galno. soo si trade-ka u gashid marka waxa u baahan tahay inaad dhahdid place order oo ah order-keygii ii dhaxdhig ama ii fuli. place order ayaan taaban doonaa. sida u jeedin place order ayaan taabtay si automatic ah ayaan market-kii u galnay oo waxaa meeshan ugu jeednaa in trade-keeni GBGBY oo si automatic ah inoogu furmay oo waxaa meeshan hadda u jeednaa GBGBY in minus-ka hadda ay ku jirto ay tahay $11 oo suuqa socdo. marka qaybta trade-da markaad gasho meeshan positions-ka ayaa ku soo furmi doona ama meeshas ayaad ka arki doontaa. soo waxa ku tusi doonaa qaabka kale ee MT4 uu ugu fiican yahay. haddaad rabto dhanka kale hadii aad rabto tusaalahan inaad modify aad sameyso load-kaagii inaad yareyso hadii aad rabto sidoo kale inta ayaad ka yareyn kartaa oo modify ayaa sameyn kartaa. hadii aad rabto double trade inaad sameyso inta ayaad ka qaadan kartaa. hadii aad doonto markuu reversal uu soo sameeyo inaad trade ka qaadato qaybta reversal-ka ayaad ka sameyn kartaa. soo ayadana waa waxyaabaha kale oo MT4 ka ugu fiican yahay. hadda waxyaabaha kale uu MT4 ugu fiican si trader-ka haddaan kula share gareeyo ama aan ku tusiyo tusaale hadda waxaan kor taaganahay GBP/USD oo lacagtii aan trade ka gelinay. waxyaabaha aniga ahaan aan ku jeclaado waxa kamid ah hal mar calculator-kan ayaan iska delete gareyn doonaa si shaashad nadiif ah inuu noqoto. waxyaabaha aan ku jeclaado waxay tahay sida u jeedid si automatic sida trading view-ga ah
wuxuu hadda meeshaan iiga muuqdo meesha suuqa aan ka galay. Saa u jeedid suuqa waxaan ka galay 166 ayaan ka galay. Stop losskayga bal ila fiiri wuxuu yaalaa qaybta sare oo ah 169 halka take profitkayga haddii aad ila fiiriso uu yaalo 159,600. marka waxyaabaha ugu fiican yahay waxay tahay haddaad rabto inaad take profitkaaga soo dhaweyso ama stop losskaaga aad soo dhaweyso oo ma baahno inaad modify soo sameyso kadibna aad tirooyinkii ka bedesho. kaliya waxaa sameyn kartaa qaybta take profitka ayaad qabanaysaa oo click ayaad siinaysaa waa soo jiidaysaa mujidaada tusaalaha waa soo jiiday inta ayaa keeni karaa oo waxaan ka dhigi karaa 160,420 si automatic ayuu u qaadanaa. macnaheedu waxay tahay hadda soo laabto si automatic ayuu 160,420 isku xiri doonaa oo take profitkayga iga qaadi doonaa. si lamid stop losska saasa sameyn kartaa oo waa soo guuri kartaa oo kaliya waa soo jiidaysaa meesha allaala meesha rabto ayaad keeni doontaa. take profitkayga hadda waxaan leeyahay meeshiisii iyo celi. so waxyaabaha kale uu ugu fiican yahay asin MT4 waa ka oo in qaab automatic aad trade aad marba dhinac aad ugu qaadi doonto oo marba dhinac aad u rari doonto. so waxaa filaa dhammaantiina inaad wada fahanteen qaabkii si trader uu shaqeeyo. insha Allah muuqaal fiican oo sharxaadiisa aad iyo aad u heesareyso waxaa kasoo sameyn doonaa midda computerka maadaama midka computerka uu aad iyo aad ugu qurux badan yahay chartiska oo aad shaashado badan hal mar wada furo karto waxyaabo badan ama features badan oo mobilka uusan lahaynin uu computerka uu leeyahay. marka waxaan rajaynayaa muuqaalkaasi inaan si fiican ugu sharxi doono. kaliya muuqaalkan waxay iga ahayd gaarsiis iyo qaabkii ay tradeada mobilka dadka isticmaalo ay u gali lahayn. waxaan filaa inaad ka wada faa'iidaysteen muuqaalkan. fadlan haddii markii kuugu horeysay ay tahay ama markii kuugu horeysay channelkan soo booqatay ay tahay subscribe-ka noo saar. sidoo kale ha hilmaamin Telegram-ka inaad kusoo biirto linkiga description-ka yaala inaad iska diiwaan geliso si caawinaad buuxdo aad iga hesho. muuqaalkan muuqaal kale waa aniga idinka tagayo. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.